عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مرسي شرفتا مدشن كلن كان بركولانكا دنياش عاقا كورنتدا waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa oo aan leeyahay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta agaasimaha commissionka coordinatorka energy sector working groupka ee madashan inoo coordinate gareeya secretariatkiisa shirkadaha korontada Somaliland shirkadaha tamarta cusboonaata hay'adda dhowrista tayada jaamacadaha dalka wasaaradda maaliyadda iyo aqoonyahanka dalka oo aynu madashan iyagana ku soo casuunay dhammaan iyo shaqaale weynaha wasaaradda tamarta iyo macdanta sidoo kale shirkadda istiraatiijiyadda 10 sano ee sectorkeena la wada oo ay tiim nagala joogo bacda salaan kadib waxaan idinku soo dhaweynayaa madashan energy sector working groupka oo aynu ugu talagalnay madal aynu ku kala xog qaadano oo aynu kaga tashano sectorka saddexdii biloodba mar kulankeena waxa weeyaan kulankii saddexda bilood ee ugu horeeyay ee sanadkan 2025 waxaanaynu ugu talagalnay inaynu xog kooban oo presentation oo saddex qaybood ka kooban halkan aynu ku wadaagno waqtigeedina uu yar yahay sessionku inta badan wuxuu u badnaan doonaa mid aynu ku kala qaadano aaraa iyo fikiro dabadeetana fikradaas ka soo baxa meesha aynu ku darsano sidii aynu u fulin lahayn sessionkeena soo socday ka dambeeya saddexda bilood ee soo socda oo noqdo wixii ka qabsoomay in ay achievement ka gaadhin ay ku soo bandhigno waxyaabaha challenge nagu noqdan aan dib iskula eegno sidii aan u fulin lahayn marka maanta sessionkeena wuxuu daaran yahay sidii aynu uga doodi lahayn waxna iskaga weydiin lahayn maxay korontadu qaali inoogu tahay inagoo waxyaabo badan iska weydiin doona halkaana maanta action point kala tagi doona haddii la idmo ka labaad oo ah appliance-ka aynu isticmaalno qalabka beeqaaminta tamarta korontada ee dalka yimaada iyagana aynu wax iskaga weydiino oo qalab ku habboon efficiency-giisu wanaagsan yahay sidii aynu u heli lahayn maxaa caqabadayn naga haysta iminka aynu u keeni lahayn dalka ka ugu dambeeya oo ah sidaynu xogta u wadaagaynaa sectorka oo ta ugu muhiimsan ah oo aynu doonayno inaynu the forecasting-keena iyo low demand-keena aynu mustaqbalka hiigsanayna aynu ka heli doono sidee buu sectorku iskugu furnaanaya sidaynu xogtan u wadaagaynaa waxaad ka garanaysaa wasaaraddu sida ay u danaynayso stakeholderskeeda ay mar walba kala tashanayso wiigii hore waxaynu hotel Chess ku joognay inaynu ka wada tashanaynay istiraatiijiyadda 10 sano aynu sectorka u sameynayno stakeholderka u dhamaystiran inay qayb ka ahaadaan waxa halka ka soo baxaana uu noqdo wax uu sectorku leeyahay sectorka u adeegaya waa sababta barkulankana aynu u sameynay balni stakeholdersku iskaaraan xogtoodana ay meel ku wadaagaan meel loo socdana la ogaado kulankeenu intaasuu daaran yahay wuxuu noqon doonaa kulan wax isweydaarsi u badan oo koobnaan doono presentation-kiyo waxaan idinla wadaagaynaa laakiin aan doonayno wax badan inaan idinka helo maadaama aynu maanta u dhannahay aqoonyahankii dalku halkan uu fadhiyo waana idin soo dhaweynaya waqtigiina qaaligeedu soo horteen waxaan iminkana inta aan uga soo bixi doonaa madaxda kale ee wasaaradda in iyaguna kelmadahoogiina yidhaahdaan waanad mahadsantihiin dhammaantiin